Soomaaliland waa dal xor ah annaga u joogna dadka Soomaaliland waa annaga Soomaaliya waxaan leenahay dalkiina karta dhamaantood xasan sheekh waxaan leeyahay maanta ugu horeysay xilka qaaday waxaad leeyahay Soomaaliland inaga way naga go'an tahay waa wadan istaagsan ayaa tiri laba cisho kadib waa isbedesho waxa tiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay dadkan meel baan u leenahay adeer meeshan ma liidina waxa isku xogina waxa idin leeyahay waa idin salaamay Soomaaliland bari hore ha talaabsatay sharaf iyo karaama adeer gacali haddii aan Soomaaliland nahay waxaan leenahay waxaan aad u soo dhaweynaynaa safarka madaxweynaha Soomaaliland waxaan leenahay kuul iyo gobonnimo aqoonsiga aad baan u jeclayn ma sha Allah baan leenahay Soomaaliya waxaan leenahay laba dawladood oo jaaraynu nahay ogaada jaarnimadiina xadkiina ka soo gudbina Soomaaliland ha tirsanina ayaan leenahay Soomaaliland waa dal xor ah annaga u joogna dadka Soomaaliland waa annaga Soomaaliya waxaan leenahay dalkiina karta annaga iskale dalka Soomaaliland haddaan Soomaaliland ayna Soomaaliya ma ogolin annagana jecel dalkayga dekadana ha tirsanina leenahay annaga xor u ah dalkayaga haddii la kareeyay haddii la iibiyaba annaga iskale marka Soomaaliya waxaan leenahay shaqo kuma liidin taasi aad waa ku dhawahay maanta waxaan isku shucuurteeda lama soo koobi karo waxaan isku soo baxnay taageerida bada laga kireeyay Itoobiya iyo itiraafka leeno magacaabay alxamdulillah baan leenahay Soomaaliya ma quusanayso kun way kala hadlayaan dhamaantood xasan sheekh waxaan leeyahay maanta ugu horeysay xilka qaaday waxaad leeyahay Soomaaliland inaga way naga go'an tahay waa wadan istaagsan ayaa tiri laba cisho kadib waa isbedesho waxa tiri Soomaaliland anaga iskale waar malihina ku quus qaado nin hadda tahay hargeysay ma ku dhahay oo kale mid birbirad wax ka qaad anaga kiraysanay calankeegu xulku maraya lana ma helayo ma sha Allah intaas ku soo koobi karo maanta dareenkayga lama koobi karo maanta farxadii adduunkan maanta aqoonsigeena maanta waa ku faraxsanahay maanta qarankayga farxadu gaariyo heelku gaaray mudana Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay jiro abidka noolow maantana waa ku faraxsanahay aad iyo aad farxadda lama qabo maanta la aqoonsaday dawladda Itoobiya waxaan ku faraxsanahay inuu guusha noo soo hooyay madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi waa ku dhawaala marxin maanta dareenkayga lama soo koobi karo maanta farxadda halka waxa la qaybsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guusha noo soo hooyay cadawga le Soomaaliland dabadhi sun xalay waligin ya alina lama socon madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa guusha noo soo hooyay aad iyo aad baad u wadansatay madaxweynaha Muuse Biixi halka maanta farxad iyo dareenkayga lama soo koobi karo maanta waxaan uga mahadcelinaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxa isaga noo sababay in la aqoonsado maanta dalka Itoobiya isagana noogu argayso madaxweynaha Muuse Biixi salaan aadan diray in kasta sanadka 2023 waa sanad aan aad ugu faraxsanahay ilaahay waxaan ka baryaa sanadkan afriyalaadka inuu nooga dhigo sanad Soomaaliland oo dhan khayr iyo barwaaqo u geliya waxaan leeyahay maanta anigoo ku nool wadanka caasimadda Gabiley waxaan leeyahay Soomaaliland jiro joog madaxweynaha waxaan leeyahay adaan maanta ku soo baxnay inaan calankeena kor u taagno Soomaaliyana waxaan leeyahay dhaqda badan iska daayo waa duulnay anaga naga daba hadha Allah wadiga arkay aad iyo aad baa dabaldega loo agaasimay aad baan ugu faraxsanahay dareenkayga iyo shucuurteeda gaar ahaan reer Gabiley aadaanu nahay ugu faraxsanahay horumarka dalkayga ku soo kordhay sax waan ku faraxsanahay heshiiska badana ayaa horta yaa biyaha ka cabi jiray Soomaaliya way qaldantahay inagu soo iskameynaan lahayn marka waxa weeyaan anagu mashquulnaa leenahay horumarka walaalka markuu horumar galo waa lagu farxay lama lagama xaasido marka xaasidnimada naga daay jaarkayga baatiin bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku sugannahay fagaaraha khayriyada Gabiley waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi guusha uu ka soo hooyay dawladda federaalka Itoobiya oo aad iyo aad u soo dhaweyn haddaanu nahay dhalinyarta reer Gabiley waanu ku faraxsanahay horumar weyn baanu rajaynaynaa gaar ahaan gobolka Gabiley ee cagaarani wuxuu in badan ka qatanaa inuu yeesho maxay heeday dekad ama uu yeesho madaar markaan waxaan rajaynayaa inaan noqono gobolka ugu qanisan guusha weyna caawa aadaan ugu faraxsanahay waa taas Soomaaliland inay noqoto gobol gaarkeega u tiirsan alxamdulillah baan leeyahay ilaahay baana nagu mahad celinayaa dhulka la leeyahay Soomaaliland baa laga iibsadayna isaga Muuse Biixi xor u dhulkiisa waxaan leeyahay hambaliyo Soomaaliland inay noqoto gobol gaar u taagan oo maanta gobolkeega gaar u tiirsan waxaan leeyahay Itoobiya aad baan ugu mahad celinayaa alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
halka waxaan ka salaamaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne jiro joog waxaad soo heshay guul weyn oo aad iyo aad loo wada sugayay waxaan halkan kale uga jawaabayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo dee iska hadlaya sidii saxa waxaan leeyahay waxaad leedahay badbaad leeyahay leedahay waryaan adiga lagu iibinayo adiga laftaada u boqo yaan lagu iibinayo annagu waxaan ku fikirayaa inaan adigu iibiyo